Dadka ka soocnow, ha isku mashquulin hana ka fikirin gefkii hore aad u samaysay, waayo beri waa fursad kale oo aad ku sixi kartid intii shalay qabyad ka ahayd. Rasuulkeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay: Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-daciifi. Waxaan kula doonayaa horumar iyo guul. Adduunyadu waa sidaad aragtay. Waad cuntaa, waad cabtaa, dadka oo dhan ayaa sidaasi sameeya. Haddii aad tahay sidaasi oo kale, dadkaasi waxba kama doonin, kamana horumaraysid, kamana dibicaysid. Ha ku dadaalin inaad dhisto guri weyn oo aad ku noolaato, laakiin ku dadaal inaad dhisto guri aad ku noolaato oo xasiloon, oo ay ka dhex iftiimayso akhlaaq wanaagsan iyo Alla ka cabsi. Horumari nafsadaada. Haddii aad rabto inaad noqoto dhakhtar, noqo dhakhtarka ugu sarreeyo. Haddii aad rabto inaad injineer noqoto, noqo injineerka ugu sarreeyo. Haddii aad rabto inaad noqoto ganacsade, noqo ganacsadaha ugu sarreeya. Waa arrin fudud oo la samayn karo, laakiin waxay u baahan tahay oo keliya qorshe, go'aan, iyo qabasho ama ficil. Awood uma lihid inaad beddesho muuqaalkaaga si aad u noqoto kan dadka ugu qurux badan, laakiin waxaad awood u leedahay inaad beddesho dhaqankaaga si aad u noqoto kan dadka ugu akhlaaq wanaagsan. Maxaad doonaysaa inaad noqoto marka aad dhammayso jaamacadda? Ma waxaad jeceshahay inaad noqoto caalim? Ma waxaad jeceshahay inaad noqoto dhakhtar, injineer, ganacsade iyo wixii la mid ah? Ka fikir waxaad noqon lahayd oo go'aanso. Waxaan ula jeedaa hadafkaaga ha noqdo mid cayiman oo leh jiha la garanayo. Nin la yiraahdo Bill Gates waa mid ka mid milyaneerada adduunka ayaa wuxuu yiri: mar kasta oo aad cilmiga si mug leh u guda gasho, fursadahaaga ayaa kordhaya oo waxaad arkaysaa halka ay fursadda ka jirto. Noloshu waxay macno badan yeelataa marka aad garowsato xaqiiqda fudud ee ah in fursad isku mid ah aysan laba jeer ku soo marayn. Ka faa'iidayso fursad kasta. Waxaa jiro xikmad oranaysa: go'aanka uu qofka ka dhiganayo ciribtiisa dambe ama noloshiisa oo dhan, xitaa waqti yar ha ku qaadatee, wuu gaari doonaa. Muhiim ah inaad ka xanaaqdo waxa dhabarkaaga laga yiri, waayo hortaada lagama oran karo. Waxaan ku dhihi lahaa: wax waliba oo aad doonto, Alla weydiiso oo Alla xaggiisa ka raadi. Haddii raadintaada ay tahay mid dhab ah, ayna xagga Alle kugu qoran tahay, waad guuleysan doontaa insha Allah. Waxaan shaki ku jirin in aad gaari doonto hadafkaaga, waana xaqiiqo. Weydii Allah oo wax walba gacantiisa ay ku jirto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.